nin taajira ayaa masjidka soo galo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayay xafiiskiisina markuu tagana waa laga celiyaa wuxuu yidhi masjidkee buu ku tukadaayo masjidka halkaa ku yaalo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniinaas ka jiro ilaahay ku xidhan moogtaa oo ilaahay cilaaqa la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ilaa dhanacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annakay ahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa ee maxaad gacmaha la taagtaagi manakaadna kaga dhumanaysaa meesha soo bax buu yidhi yaa allah يا مسلم تاجرك إلهي بو باهن يهي مسكينكنا إلهي بو باهن يهي مدحد إلهي بو باهن يهين دلن يرد إلهي بو باهن يهين شعوبت إلهي بو باهن تهي إلهي بن آدم كل لمحة عين كمان مرمي كرام إلهي وانو باهن لذلك مساجدك دين تأتكد حيستد أي الله دوني أين دبده ولا بحث وقرتها sidaad masaajidkan aad uga cabsanaysa ilaahay aad ugu dhaxbariyeysay ee bini aadanka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa miskiida dibadda ula baxaad u leedahay ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sidaa u muraaqabayso oo tidhaadid ilaahay bay arkaya ilaahay bay maqlaya يا أركاي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير خلقه سميل كستيجوغان كأوجد أركاي وإلهي هذا إله كما قرصد يعلم سر وأخفى وحلابتاada ku jira waa og yahay walaalkay adiga sirtayna dhaxmartay ilaahay waa og yahay Safwan bin Umayyah ayaa Umar bin Wahab ninka la oran jiray ayagoo marka labadoodu waa mushrikiina oo Makka ay joogan waa zamankii nabigeena kaleey salaatu wassalaam waqcadii dagaalkii Badar baa laga soo noqday 7 gaaladana waa laga laayay 7 gaala ana nabigu waa qafasho uu xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar bin Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 7 kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar bin Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aan u adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan oo intu sabaan oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buu yiri Safwan bin Umayyah ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raaca buu ka yiri waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer وصار سعودي آلات كان زمن كان إمك أسكو تورتورا إنه فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصار سعودي مدينة وصار قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجاني قارن مر عليه مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواكا جاني قارن قرت كسيتي أردو النبي إلى علي يقول النبي إنه أجوج النبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق ومو سعودي خير وما سعودي
markaasuu ayaa rasuulka loo sheegay oo lagu yidhi nabi allah Umar bin Wahab baa soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa buu nabigu yidhi soo galiya loo soo galiyay maxaad u timiday buu ka yidhi waxaan u imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inanka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii samaysaanna waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yidhi oo ka wada hadalno markaa buu nabigu ku yidhi seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hadaa wuxuu yidhi qabbaha allah buu ilaahay haba duleeyay seeftane ma waxbay noo tartay buu dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saudi 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa buu nabigu ku yidhi fariisa buu yidhi arrinka ma harikaad u socoto aniga kaaga warramay oo fadhiista adiga iyo Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fadhiisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeynii geystay markaasaad tiri haddaan heli lahaa daynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa Madiina intuu tagaan Muhammad aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna daynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaad u socotay kaabuu haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid ilaahay baa ilaaliyay rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga warramay allah baa uga warramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sidaa hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayna tawxiidka ay qirb ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma gacantaas ka haysan xabas ilaahay isaga ka taliya koonka tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab امرأة أبي لهب أيا نبي أوتمد عليه الصلاة والسلام يضرب نجح سدته أبي بكر بأوتمد وهل كان فرديا رسول قنا وقف فرديا صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسول قنا عسكو هيان مركز إلى ذا هي أبو بكر صاحبك ما نو إليه النار بتكون بيني دونته وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كوايس تاموت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري بقى حيسك أنستوى مدحا بشكسين لها بيتري مركز كان نقطب أبو بكر نبي يا رسول الله ما ينكو أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنك هيبل محو حكو أركا إيش وحكو أركا من لنا هاي ما يأمرك إلهي وحكو أركا دكتو وحكم مغلام مي دكتو أمرك إلهي بهو بانتاين مقاشو لوكتادو إني سعوت إلهي أمرك يسيو باهنتا خالق وإلهي مركا إلهي معرفتي سوا واجب قف كستو مسلم على قرب إلهي ونبو قرتو تصرفاتك عالمك إلهي بس كله مركا الشيء وقوه الرأي بني آدك اللقو واجب وإلهي معرفتي سوا دينتنا النصيحة دي هل كاسة كبلابتا لله كن عبدا لله إلهي أدون كيسي ونبا النقو